سؤالنا الشيخ واحد كورنتا سامبوسها هيلبka geela laga sameeyay uu jabinayaa waxa weeyaan weysada qofka aan kala ogeyn inuu yahay hilib geel iyo in kale kaasi waxa weeyaan weysadiisa ma ka shabay hilibka geel wuxuu ka mid yahay waxyaabaha weysada jabiya arrinkan waxa cadeeyo si cad oo aan muran iyo madmadow toona lahayn u sheegay nabiyina maxamed alayhi salatu wasalaam في صحيح إمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتوضأ من لحوم الغنم النبي عليه الصلاة والسلام يمين وحكيري هلب كارغ ميان كويسيستا فقال توضأ من لحوم الغنم إن شئت وحي رسولك عليه الصلاة والسلام هلب كارغ هداد دونيسو كويسيسو مركا قلت يعني هداد دونيسو وحبا كويسيساني ويسداد واد قبطاي iska tuko su'aal labaad buu nabiga kaleey salaatu wasalaam weydiiyay wuxuu yiri atawaddu min luhum al-ibil hilibka geela miyaan ka weysaysta faqala kaleey salaatu wasalaam tawadda min luhum al-ibil ka weysayso wa amara ka weysayso hilibka geela markaad cunto waxa kale oo lamid ah xadiis al-bara ibn azib alladhi rawahu abu daawud أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري كويسيستا هلبك الجيلة وورعا ويسنا هدين الغشاء القرآن أما حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام وحا لوغة جيدا ويسنا الشرع قابل لوغة جيدا ويسنا الصلاة اللي ويسيستا لوغة جيدا وحا لوغة عرباد ويسنا الله يقان مركا قاركوت سيدا قفكو ينو فرح شوكرا لبدا حديث لا معارض لهما حديث كلا وصحيحة وكهر يمي وشيغيا هلبك جيلا إنا لغا ويسيسن أما إنت الله عنو إلا إسكتو كان كريدون لو ويسيسن ما تشيرو لما نورن كروا منسوخ وحا نسخية حديث كجابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار حديث كاسوح ورميا نبي عليه الصلاة والسلام وحا كدن بيسي waxa la kariyay ka weysaysigii uu ka weysaysan jiray inuu iska daayay waayo xadiidkaas waa caam oo xadiid guud oo wixii la kariyo dhan bay ka waramayaan hilib geel ha noqdo hilib ari ha noqdo wax kale ha noqdo labadan xadiis aynu sheegnayna waa khaas oo waxay si gaar ah uga warameen oo xukum gooniya ay siiyeen hilibkii geela wal khaas yaqdi ala al aam daliilka mas'alada u gaarka ahi isaga meesha ka saaraya daliilka si guud mas'alada uga hadlaaya oo ka khaaska ayaa lagu camal falaya lama oran kara xadiidkaasi xadiidka waa nasxi waayo nasxiga shuruudiisa waxa kamida alla yumkin al-jam'u bayna ad-dalilayn labada daliil in la iswaafajiyo inaan suurtoobin labadan daliil in la iswaafajiyo hadda waa suurtooda waxa la isku waafajinaya sida aynu sheegnay la xadiidkaasi waa caamo hilibka geela si gaar ah uga muuqda حديث كان سيجار وهلب كجيل وجهر وحكى النبي عليه الصلاة والسلام وكلا قاضي هلب كجيل يهلب كارجة لبدو دبوال الكريم هلب كارجة وحنا هداد دور سكوي سيسو هلب كجيلنا النبي عليه الصلاة والسلام كوي سيسموني وح النبي يقول كوي سيسماها إنه يهاي وح الكريم ويا هدي تاي ده هلب كارجة كوي سيستور الله اللي هلب كارجة هو الكريم لكن ولكونه لحم إبل وإنه يهي هلب جيل أو جيت ولهذا روح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث قلت به أو ذهبت إليه حديث كقصة أروري هلب كجيل إلا جوي سيسنا أيه هدو النبي عليه الصلاة والسلام كسبنا هذا حديث كسمانو كتب يا مذهبية حديث كنا صداد مقشي وأصحي ولهذا بقى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وكم يدعو علماء حديث كالشافعية قامت دير حديث كأقول له وحو يري هلب كجيل إلا قوي سيستاع ومذهب كالشافعي ولو شافعية ضد بها خلافان به وايو لأن الشافعية قال إذا صح الحديث في لحم الإبل قلت به وقد صح الحديث شافعي وحو حديث كهلب كجيل إلا قوي سيسر يشيغيا هدو النبي كسبناادو حديث كسرانيقو قادريا وشافعي وحوها حديث راعي دليلكو هدو عدادو دليلكو راعي
waqad saxa alxadiidu buu yihi alimaam albayhaqi raximah llah xadiidkuna uu ansaxay oo uu ka sugnaaday nebiga calayh salaatu wasalaam idan waa madhabkii shaaficiy walihaada waa culimo badan oo culimada shaaficiyada ka midii madhabkaasi ay doorteen waa culimada ka mida albayhaqi waxaa ka mida alimaam الnawowi raximah llah saaxibu اlminhaaj wاlmajmuuc oo wuxuu yihi fi lmajmuuc wa huwa almukhtaaru alaqwى daliila in hilibka geelu waysada uu jebiyaa waa sidaanu dooranayno aanu ku tegayna buuri waana sida xooga badan daliil ahaan waxaa asxaabtayadu shaaficiyada mutaakhiriinta buu ujeedaa dambeeyey ay xadiidkaa kaga jawaabeenna waa daciif buu yihi qaar yidhi waa mansuukh iyo qaar yidhi waysadaba waxaa looga jeedaa faraxalasho oo wax daciifa weeye xadiidkaan laga horgeyn karin wakadalika alkhaaabi raximah llah saasuu ku tegey wabnu lmundir wabnu khusayma wakuluhum min culamaai shaaficiya almuxaqiqiin almuxadisiin alfuqahaa saasay dhammaantoodba waxa weyaan ay ku tageen hilibka geelana xaqiiqadiisaa la eegaya waxaa wax aad iyo aad loo qariibsado looga yaabo ah in wadaadada qaarkood ay yidhaahdaan haddii magacu isbedelo xukunkuna wuu isbedelaya hada yukhaalif annusuus walqawaacid asharciya taas waxay khilaafsantahay adilada iyo qawaacidda shareecada lagu yaqaan shareecadu xukunka kuma xidha magaca xukunka waxay ku xidhaa shay xaqiiqadii waxaa la idhaahda khamriga magaca alkhamru lahaa markii waxyigu uu soo degaayey xukunka xaaraantimayntiisa ma wuxuu ku xidhanya magiciisa mise xaqiiqadiisa dee magaciisa kuma xidhna oo maantaba cidda magaca khamri u taqaana way yaryihin magacyo kale loola baxay soo maa haddaynu idhaahno magacii ayaa isbedelay xukunkuna wuu isbedelaya dee khamriga dadka magac kale ula baxay waxay noqonaysaa inuu xalaalo noqdo ile magacii baa isbedelay xaqiiqaduna sidaa ma aha waxaa la eegaya in xaqiiqadiisa waxan wax lagu sirkhaamo ma yahay hadduu qofku in badan ka cabo ma ku sirkhaamaya ha idan intiisa yar iyo intiisa badaniba waa xaaraan magaciisu wuxuu doonayaba ha noqdee sidaasoo kale hilibka geela xaqiiqadii hilibka geela hilibgeelnimo meeshan ma taalla dadku magacay doonayaan ha u bixiyaan dadku mar waxay odhanayaan jabdhan mar waxay odhanayaan muqumad mar inta ay roodhi soo iibsadaan oo hilibkii geeloo kuuskuusan ay ku dhex guraan bay odhanayaan sandawaj baan cunay mar inta yaryareeyeen bay odhanayaan suqaar mar isagoo ka yaro buurbuuran bay odhanayaan roos soo maaha mar waxaan saambuusaha lagu tilmaamay ku dhex gurayaan mar duqad baa loo bixinayaa laakiin xaqiiqadu waa maxay magaca kale la doonayaba ha loo bixiye hilibkaa haddii la yidhaahdo waar duqadani maxay ka samaysan tahay maxaa la odhanaya hilib geel muqumadan maxaa laga jaray geel suqaarkani waa maxay geel baa la odhanaya mar walba xaqiiqadu hilibgeelnibay unoqonaysa marka magaca la bedelay waxba tari maayo marka calaa kulli xaal haddaad hubto saambuusa ama waxyaabaha kale aad cunayso hilibgeel inuu ku jiro waxaa waajib kugu ah haddii markii hore aad weyse qabtay inaad weysaysato haddaanad adigu ogeyn oo aad cuntay inaad weysaysataa waajib kuguma aha waxa ku jira haddaanad ogeyn inaad baadhood raadisaana mid dushaada saaran maaha waayo qofku wuxuu mukallaf ku yahay oo loo diray wuxuu og yahay oo shuruuda takliifka waxaa ka mid ah alcilmu bishay qofku shaygan inuu garanaayo wallahu aclam